markii aan yaraa iska jeclaa ilaa xitaa marka xaafadaha wax kasta oo ka xumaado soo qaadi jiray oo furfuri jiray markii dambe heerka ma soo gaari yaasir cabdilaahi maxamed waa wiil dhalinyaro ah da'diisuna ay tahay 15 sano wuxuu hindisay inuu sameeyo qalabka loo yaqaano ATM ee bangiyadu isticmaalaan oo ah ka aalada lagu isticmaalo fiiskaarka oo lacagta lagu baxo qalabkan waxa la yiraahdaa ATM waxa loo isticmaalaa qalabka muxuu ah lacagta laga saarto oo banaanada yaalo oo bangiyaasha isticmaalaan hadda laba leer baa nooshan labada leer waxa weeyaan mid waa leerkii powerka weeyaan midna wuxuu leeyahay kaarka gali markaan kaarka galino waxa damay kii kaarka gali laaba damay waxa shidmay inta kii pinka gali laaba shidmay kadib iskan waxa weeyaan reset kan waxa weeyaan back weeyaan kan waa enter saddexdan hadaad furtid waxa shidmay juice money hadii password kala ama wax kale iskaga qortid ma furmay hadaa wax kale iskaga qortid labada leer kuma shidmaan oo ma gudbay xarkaanta way ka go'aantay ka dhigantahay bas hada labada waxay ka dhigantahay lacag dooro marka dambana bas kaar ka saarba marka lacagta doortid kadib waa kan sharyaal weeyaan tawaryaal kontaryaal waa saddexdan weeyaan saddexda box waa kan xagga may ku kala jira saddexda xabo saas waa bas lacagta markuu soo dhaco kaarka markaas aad u saartid xagga lacagta ku shin lacagta ayaa ku soo dhici kaarka artay asigoonan ka soo saarin lacagta kuma soo dhacayso kaarka marka soo hortaartid lacagta ku soo dhacaysa leerkan uu shinmanay kaarkan waxaad ku samaysay kaarkan wuxuu ka kooban yahay halka makiinadu badarka kaarkaaga markaad imika kaarkan sidee u samaysay u hindistay kaarkan waa looxii xog samaysan yahay birtaas hadaad iyada akhriyaya asiga hadaad ku kala gelisid mooshan loox kala hadaad gelisid markaad imika iskuulka dhamaysato ma jeceshahay jaamacadaha lagu barto waxyaabaha elektrooniga ama IT-ga inaad gashid ani maadadaasaan doonayaaba inaan bartaba koor ahaan haddaan wax kale helo inaan bedesho sababta tan baa xiisay ama waxaan inaan doonaya inaan bartaba ayada aan galo wixii yar ayaan ku bilaabay waxay ahayd wax yaroo bas muraaxad yar iyo muraaxad yar iyo caag yaroo gaari yar laga sameeyay waxaas bas saan u soo waday bas tartiib kan baan soo gaarsiiyay markii yaasir cabdilaahi maxamed waxa uu wax ka bartaa dugsiga iqra waxaanu ka mid yahay ardayda fasalka 10aad ee u gudubtay fasalka 11aad wuxuu ilaahay hadaba siiyay maskax leh hal abuur waxa uu jecel yahay inuu soo saaro mar walba wax cusub wuxuuna hindisay gaari yar oo nooca xamuulka ah oo markaas isagu shaqaynaya gaarigan horta waxaan ka sameeyay loox baan ka sameeyay waliyana waa charge uu qaata sida charge-ga kale xagga yar charge uu ka qaata marka charge-ysid leerka baa shidmanaya leerka haduu shidman waayo waxay ka dhigan tahay leerka charge kuma socday ka dhigan tahay marka saarto hadoo kale haduu xumaado haduu xumaado artima waxa sameyn kartaa kuwa waxa jira la furimaa la sameey haduu xumaado bas waad bolon ma wada waa furfuri waxa ka saari kartaa kadib wax kale ku bedeli bas waa hagaajin siis waliba xaq korkiisa waxaan mariyay range oo sophisticated waa haduu biyo ku daato xitaa waxa ma noqonayo gaarigan ayaa hadaba wuxuu ka kooban yahay walxo alwaax iyo waliba caag yaryar oo markaas uu isagu isku xidhay wuxuuna adeegsaday baytari yar iyo waliba deynabo taasoo dhaqaajinaysa baabuurkan yaasir kuma koobno oo kaliya samaynta aaladan oo kaliya ee wuxuu hindisay qalab yar oo lagu cabirayo biyaha kaasoo sheegaya in weelka biyaha ku jira ama u buuxo amaba ay biyuhu markaasi dhiman yihiin waa kan isagoo sharaxaya aaladan biyaha lagu cabiro bahalkan waxa weeyaan bahal loogu talagalay biyaha in lagu eego in muxuu ahaa in xaggu socdo biyaha bas waxa weeyaan hadda biyaha markuu hoos socdo kor socdo inuu buuxsamay uu ku sheegaya afar leer weeyaan waa low medium high iyo full weeyaan markuu bas haduu full dhaho bas waxay ka dhigan tahay uu buuxsamay bas mediumna waa in yar buuxitaankiisa ayaa wax bas markuu dhaw uu buuxsamay haddaba wiilkan oo qaba rajo weyn wuxuu higsanayaa mustaqbalka inuu noqdo injineer ka shaqeeya amaba ku shaqaysta aaladda elektrooniga cali ayaanle Honkable TV magaalada Jigjiga adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo
aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.